in isagoo markuu joogay UK matali jiray oo xiriiriye ka ahaa community-gii ka soo horjeeday ee ku mudaharaadi jiray dowladdii xilligaa jirtay ee Maxamed Siyaad Barre marka markii aasaasayaashii 12 ahaa ee isagu ku jiray ee Sacuudiga ay ka yimaadeen Cabdisalaan iyo Maxamed Xaashi aasaasayaashii 12 ahaa ayuu ahaa ee SNM aasaasay waxaanu ka mid noqday gudidii golaha dhexe gudidii golaha sare ee SNM ayuu markaasi ka mid ahaa in golaha dhexe ee SNM Dr. Cumar Cilmi Dixood waxa uu markaasi in ku biiray markii laga soo noqday markuu UK ka soo noqday uu ku soo noqday dalka Somaliland Hargeysa waxa dawladdii Cigaal iyo dawladdii Riyaalaba uu u qaabilsanaa aqoon raadiska Somaliland adduunka oo dhan waxaanu markii dambe xilligii waxa weeyaan dawladdii Riyaal lafteeda saas uu ahaa ilaa 2006 uu ku biiray ururka markii axsaabtii la furay xisbiga kulmiye 2006 waxa halkan maanta inagu martiya Dr. Cumar Cilmi Dixood oo runtii in badan oo markaasi Hargeysa joogta ay ku xasuustaan inuu ka daweyn jiray cudurka dhimirka waa nin waxa weeyaan aad iyo aad caan uga ah Hargeysa imikana wuxuu yahay siyaasi weyn isagoo markiisii horena siyaasi ahaa imika wuxuu yahay la taliyaha gaarka ah ee waxa weeyaan madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo Dr. Cumar ku soo dhawow Star TV waad mahadsantahay in haddii aan iska guda galno in barnaamijkeena waxa aan doonaya horta mar hadda dalkii ka timi in aad tahayna la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo Somaliland inaad nooga waranto dalkii halka uu maraya xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha dhinac walba xaggii bulshadii xaggii caafimaadkii bal war guud horta nasiib mar hadda dalkii ka timi horta intaasoo dhan kama warrami karee iyo rookob adoo soo kooraya dalkii xagga nabadgelyada marka la eego dalkii xoog buu wanaagsanaa wax dhibaato oo dalkii ka jira oo la sheegi kara oo aan wanaag ahayn iyo nabad aan ahayn horta ma jirto annaka gama iman colaad iyo rabshade iyo xankaasa intii iga dambeysana ma jirin arligu si wanaagsan ayuu u socdaa dhaqaaluhu u kobcayaa tacliintu ay u kobcaysaa caafimaadku u wanaagsanaanayaa oo dhakhaatiirtu maalinba maalinta ka dambeysa qalab aynay awal haysan jirin ayaa u imanaya amba lagu caawiyo ambaba Somaliland dawladeeduba akeensatay bulshaduna xoog iyo xoog ayay u bislaatay oo u wanaagsan tahay arligii intaas baan kaga bixilaa in maxaad number naga siin kartaa waxaad tiri caafimaadku wuu wanaagsan yahay dhaqaalihii wuu wanaagsan yahay in hadal guud laakiin adigu maxaad oran kartaa 1 2 3 waxba hospitalkii group hospitalkii hospitaladeenii siday waagii hore ahaan jireen iyo siday maanta yihiin shuqul iskuma laha dialysis baa laga sameeyaa hospitalka Hargeysa oo dadka kaliyaha ayaa loogu nadiifiyaa heerkaasna maynan haysan waagii hore ee dawladii hore ay jireen dhakhaatiir fara badan oo imika takhasus wanaagsan lehna way ka howlgashaa waagii hore waxaa dhibaato ay ka taagnayd dadka cusbitalka la keeno haddii aan lacag aynay haysan cidiba yaala sidaa unay eegi jirin imika kii waqti u haysta lacag inuu bixiyana lacagta waa lagu eegayo dad cusbitallada kale ay tagaan ka kale ee cusbitalka dawladda soo gaadha laguma canaado lacag ma haysatid taasina waa horumar laga gaadhay marka maanta xagga caafimaadka sidii la rabay of course oo sida maanta Europe oo kale damaynaan gaadhin laakiin wax badan bay ka wanaagsan tahay sidii uu ahaan jiray kolley telefoonku wuu furay laakiin ma doonayo imika inaan telefoon furo sababtoo ah horta waa in aad iyo aad nala fahmo waxaanu ka hadlayno kadibna su-aasha halkaan laga weydiiyo marka aad iyo aad baan doonayaa inaan daawadayaashana daawanaya inay waxa weeyaan noo yarkaadiyaan si ay u fahmaan horta waxa laga hadlayo kadibna su-aashooda ay weydiiyaan
waxa haddii aan u gudagalo su-aalahayga waxaynu wada ogsoonahay in aad ka mid ahayd siyaasiyiintii dhalinyarada ahaa ee aada u suulegay dowladdii siyaad barre ayaad dad dhalinyaradii caanka ahayd ee siyaasiyiinta ahayd baad ka mid ahayd dowladdii siyaad barre imika in badan ayaa waxa weeyaan laga soo sokeeyey oo tii xilli hore waxa weeyaan dalkii waxa weeyaan ka tagtay waxa aynu ognahay imika in siyaasado badan ay iska soo daba dhaceen adigu ka waxa weeyaan doctor cumar cilmi dixood mas leedahay waad ku guuleysateen hankii aad wadeen ee ahaa siyaasadda in change iyo isbeddel la sameeyo mise weli sidii bay u taagan tahay oo wixii aad diidaneedeen ilaa hadda way jiraan maxay adiga kula tahay maya wixii aanu markaa diidanayn waanu ku guuleysanay waayo dee xukunkii ka talinayay somalilan maanta kama taliyo dadka waa la iska masabidi jiray ruux baa lagu masabidi jiray aqoontiisa iyo fikirkiisa ayaa la odhan jiray ruuxaasi waxa weeyaan ruux fakari kara oo dowladda u abaabuli kara in oy isaga iyo rag kale ay u tashadaane ka naxsada oo bajiya taas baa xoog u badnayd iyadoo ruuxa la dabagalo oo la raad guro oo ma garanaysaa la gugujiyo oo dembi loo sameeyo aan jirin hataa taasi maanta ma jirto waxa kaleeto oo jiray in dadka qaarna lagu qori jiray waa kacaan qaarna loo odhan jiray waa kacaan diid taasina ma jirto haddaad maanta madaxweynaha somalilan waxaad doontida aad ka sheegto oo dee edaabdarrada qaarkeed aan ahayn ee aad criticize garayso cid ku qabsanaysa iyo cid ku xidhaysa iyo cid ku soo ashkateynaysa ma jirto waliba haddii aad criticizeyso madaxweynaha somalilan oo nin intuu cararo uu yidhaahdo halkan baa dowladda iyo axmed maxamed lagu caayaya oo booliiska aad tagtid de waa adaa lagugu qoslaya laakiin tii maxamed siyaad barre ciidan dhan baa lasoo kaxaysanayey square baa laydiga qabanayey oo de wixii ufo lagu xidhxidhay wax caynkaas oo kala abahayd ufo wax alaala waxay samaysay ma jirin maxaad u tidhaahdeen magaalaanu nadiifinaynaa iyo cisbital baanu ka shaqaynaynaa ayay 8 sannadood xabsiga ku galeen marka de wixii waa la iska dulqaaday waa la iska xoreeyey maantana dadku xorriyad bay haystaan marka waxaad leedahay hankii waanu gaadhnay laakiin uu dhamaystiran yahay mise waxbaa ka dhiman weli horta kolley waxaan u malaynayaa dimuqraadiyadda aanu haysano meel alaa meel adduunka laga haysta ma jirto dimuqraadiyad xoogla waanu haysanaa hadday wax tarayso ruuxu wuxuu doonaa buu qori karaa ruuxu wuxuu doonaa buu ku hadli karaa laakiin marmarka qaarkood waxaabaad odhan kartaa dimuqraadiyaddii baa wax loo dhimaya oo lagu talax tegaya oo weliba qoladiina miidiyadu aydaan u aydaan u aaba yeelayn oo aydu waddada afartaxaad ba aydu maraysaan oo aydan wax alaalo waxaydu yamxirinaysa aanay jirin bilmasel secret dowladeed hadday tahay haddii aad in yar ogaataan markiiba waad kashifaysaan haddii eeg waxaa jira waxyaabo aan loo baahnayn dowladda in laga sheego oo arliga iyo qarannimada wuxuu dhimaya idinku dan iyo maraatoona kamid waxyaabo badan baa la qariyaa caalamku ay qarsadaan ciidamada ingiriiska jaraa'idka ingiriisku dee kama warrabaan hadda ma garatay laakiin idinku intaydu kaymaro qaadataan oo waagii annaku ciidanka aanu ahayn haddii lagugu qabto xeere military adigoo kaymaro la dhex maraya ya luqunta inta lagugu dhufto ayaa lagu kala jabinayay waxaan arkayey waa ciidamada jooga aagga cayn amba buuhoodle agagaarkeeda idinkoo sawiranayo oo ma garanaysa ayay siyaabo aan fiicnayn u soo sawiraya
taasina ma wanaagsana marka okay kolley waa lagu talax tagay dimuqraadiyadda war isku jiraan laakiin anagu imika waxa aan jirnay 2 bilood meelaha wali waxba maanaan aad u maanaan kolley waa soo socotaa bal khad telefoon baa ku jira magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso waxaan ka soo hadlayaa London magacayguna waa Mukhtaar Cali ku soo dhawo Mukhtaar Cali ra'yigaaga waxay nala fadhiya maanta Dr. Umar Cilmi Dixood oo ah taliyaha waxa weeyaan taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo maxaad su'aal weydiin lahayd waxa weeyaan doctorka iyo adigaba waa idin salaamaya dhammaan shaqaalaha TV-ga cusub ee Star TV iyagana waan salaamaya salaanka dib waxaan soo jeedinayaa 3 su'aalood oo aan doctorka weydiinayo ama la taliyaha ta koowaad waxay tahay xisbiga kulmiye ee aad doctor ka tirsan tahay markii ay ku jireen ololahii campaign-ka doorashada Somaliland ee madaxtinimada waxyaabihii ay aadka uga hadli jireen ee ay campaign-ka ku galeen oo ugu waaweynaa waxa ka mid ahayd dekeda berbera oo marka ay ku eedeyn jireen xukuumaddii ka horeysay inay toos u hoos tagto madaxtooyada muddo yar kadib bilowgii hore markii la idin doortay waxaad ku dadaasheen inaad wasaaradda kalluumaysiga iyo dekedaha samaysaan inay dekedu hoos tagto wasaaraddaasi muddo yar oo bilo kooban gudahooda wasaaraddii waa kala qaybiseen oo kalluumaysigii baa kusoo reebteen dekediina waxaad tidhaahdeen waa la madax baneeyey yardadaji su'aalaha markaana markiiba dad badan oo reer Somaliland oo shacabka Somaliland waxay fiil garanayaan inay madaxtooyada hoos tagto marka wixii aad ku campaign garayseen oo aad ku fuusheen kursiga maxaad haddana muddo yar oo kooban u bedesheen waa su'aasha koowaad yardadaji walaal aad u raaliya waa dad badan bayna sugaya yardadaji su'aalaha walaal sharaacsanaya waa mahadsan tahay talabaad waxa weeye su'aashayda labaad aan doctorka weydiinaya ama la taliyaha waxa weeye Allahu musta'an markii dawladii hore ay udub dalka ka talinaysay qabyaaladu aad iyo aad bay u yarayd Allahu musta'an isqabqabsigu aad buu u yaraa arinta reeraha maalin walba wax la leeyahay reer hebel baashiraya yani arrintaasi xadkay ka baxday maxay ku dhacday su'aashayda saddexaad ee ugu dambaysa waxa weeye doctorku arkay inuu qoslayo waa mahadsan yahay laakiin waxaan ka muwaadin ahaan waxaan aaminsanahay inaan ku weydiiyo xaq baan u leeyahay Allahu musta'an ta ugu dambaysa waxa weeye aan ku weydiinayaa Allahu musta'an wada hadalladan aad la furteen xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya dad badan oo reer Somaliland waxay u arkaan inay madalays tahay wada hadalladaasi oo wax ka soo baxaya oo qiimo la'aan ay jirin maadaama aan laga wada hadlayn labada mabda ee la kala haysto inagu Somaliland baynu aaminsannahay yar Soomaali weyn oo mid ay aaminsan yihiin bar haddaan labada mabda laga wada hadlaynin oo la furaynin arrinta labada mabda hawl la wareego iyo bad la sheer gareeyo iyo maxay ku dhacday ina kala hawa salaam alaykum warahmatullahi aad baad ma santay saddex su'aalood hadan ku yiri dekada hadan ku bilowno dekada adigu ay xasuusiyay dekada waxa weeyaan wuxuu yiri maxamed axmed horta marka ugu horeysa waa runtii weeyay dekada anigu ilaa imika waxaan qabaa oo jirta inaan wax cashuura oo aan dekad laga qaado amba laga qaado xuduudaha amba tan la yiraahdo macaashka laga qaado property-ga amba dukaamada amba business-ka wax allaala wax madaxtooyada yimaada ma jirto kamana warhayo anigu mid uun baan ogsoonahay wax allaala wixii dhaqaale ah ee dalkaasi cashuur ahaan ku soo galaa inay wasaaradda maaliyadda soo marto dameetana banka toos ay u shaqto warka korotogteerahayna ma fiicna waxyaabo aan jirin baa dadka maskaxdooda lagu guraa oo dad badan oo aan xogogaa lahaynin ay iska rumaystaan war wax intay dekad laga soo qaado siilaanyo toos loogu kana sidee u odhanaya
okay Soomaaliya Tan waxaas qabyaalada. waa waxaan waxba ka jirin tii labaad qabyaalada udub ta qabyaalada xilliga udub buuri waxay ahayd buuri ta qabyaalada imika ka sadartay buuri adeer ma qabo waqtigii udub waynu ognahay wixii dalka ka dhacay yani markaanu aanu amba nidhaahno waxaanu ka hadalno rag baa inta halkaa noo soo fadhiistaan ayay waxay odhan jireen haddii aanu nahay beesha reer hebel nimanka caankaas iyo caankaas ee mucaaridka iyo haddayna dowladda waxaa ka daynin annakaa shaqo ka qabanayna waa adigii ogaa ee cumaamadaha inta loo soo iibiyo ay lahaayeen hadal baa la yidhi haddaan runta laga sheegin waxun baa laga sheega miyaanay ahayn reer Hargeysa kuwii intay telefishinka soo fadhiisteen oo iyagoo labada daamooda ee koonfurta ah iyo bariga Hargeysa oo waqooyiga Hargeysa intay telefishinka reer kastaaba u soo fadhiistay ay lahaayeen reer Burcow macnaha kulmiyo oo Silaanya madax ka yahay magaalada bari balaayad kala soo gasheen haddaydan joojin mucaaridnimada balaayada bari bay ugala bixi doontaan taas waxay qabyaalad cad bay ahayd oo rag la soo ciyaarsiiyay oo cuqaal sheeganaya oo inay hebel oo chief aagala oo inay hebel oo aagala hebela oo beesha caanka ka tirsan taa intaas baan kaga baxaya walaalo wax annako aanu xumaanay iyo qabyaaladadaanu ku abuurnayna ma jirto laakiin mid baan kuu sheegaya tii ay abuureen ayaanu weli dadka ka foqaynaa oonu ka guraynaa wax alaalo wax annaka aana looga tegin oonu abuurnay ma jirto dabeecadda Axmed Maxamedna maba ahaba inuu qabyaalad dhiso tan ugu dambeysay wada hadalka waa laga yaabaa inaan sidii la rabay aanaan ugu itaalsan oo aanaan wax uga qaban oo aanaan sharci laga soo saarin ninkii lagu qabto iyo cid daba garanaysa beelo ku shiraysa waa laga yaabaa laakiin waxaanu abuurnay de ma jirto ee wixii aanu u nimid ayaa isa sii dhalaya in tan wada hadalka nimaka furmay Soomaaliland iyo Soomaaliya wuxuu leeyahay mabda'ii baad moodaa in ayaan ilaa hadda la iskugu imanay wada hadal guud unba kolba la wadaa iyo adeer horta arinta wada hadalka bal aad waxaan jeclahay Somaliland waxaan jeclahay inaan mid u sheego Somaliland laba isku heli mayso dal baanu xoreynay oo dalkii aanu 60kii u geynay baanu ka xoreynay wixii aanu xoreynayna caalamka ka iibin mayno oo sidaan uga iibinayna war caalamka markii aanu la hadalnay ee aan ninka qaabilsan اعترافك عد كستا waxa igu tir oo dawladaha Scandinavian-ku ay igu yiraahdeen oo Jarmalku igu yiraahdeen oo dawladan Ingiriiska oo mar ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn ay igu yiraahdeen oo wasiir kastaaba warqadu ii soo qorayo igu soo qorayay oo ay Faransiisku igu yiraahdeen ay Belgiumku igu yiraahdeen oo Talyaanigu igu yiraahdeen hadda doonaysaan اعتراف hortaqooladii ay wixiini u geyseen iyo idinku isa soo hor fariisto wada hadla haddii markaa ay isfahmi weyda waxaad codsan kartaan marka hore iyo marka dambaba hadday isfahmi weydaan in la idin dhex galo badanaabana wada hadalada waxaa jira dad observers oo goobjoogayaalka ah anigu waxaan leeyahay 60kii inakaa nimankan u tagnay oo doonanay oo xalkooda ugu tagnay waxay inagu yiraahdeen wixiina haysta waxaanu nidhi ma bala shuruud baynu isku raacayna laakiin wax alaala wax la kala qortay ma jirin doqoniimana inagama ahayno 60kii dhulkii la oran jiray Reserve Hawd ee xuduuda xariirad soo martay ee Cabdilqaadir ka soo dhacday aw barra soo martay ee Togwa Jaala martay ee
halkaa laanta faraweyne dusheeda marta ee marta baligubadlo ka baxda ee ina guuxaa ka dusta ee buuhoola jeedha ya ee sabanka ka leexata ee halkaa garowe kaga soo dhawaata xuduudaas ayaynu ogaanay inay duleedka caasimadaheena iyo magaalooyinkeena waaweyn ay tahay hadday burco tahay hadday hargeyso tahay hadday boorama tahay taas baa markaa waxaynu iska dhaadhicinay sida keliya ee dhulkaasi daaqsinta ahaa ee somalilan lafdhabarkeedii ahaa haddii uu inaga maqan yahay gobonnimada layna siiya inaynay wax weyn oo caankaasa inaynay samayneyn oo markaasina dadkeena bedidoodu xuduuddaba way ka shisheeyo maanta reer kastaaba 90% ayaan u malaynaya amba 80 baa gudaha jooga inta kale 20 kale xuduudda malaa ayay joogaan laga yaaba in la yidhaha 30% laakiin reer kastaaba maanta xuduudda somalilan gudaheeda ayay ku badan yihiin laakiin waaga waa lagu yaraa geelay dadku la socdeen arigay la socdeen miyigay jireen marka waxaanu iska dhaadhicinay dhulka ogaadeynaya dadka qaar iminka ay u yaqaanaan idinka ayuu idin hoos imanayay isku dhaqan ahaydeen ayd wada bacmustareynayseen wax badan kala guursanayseen dad is ah baydu haydeen intaa wajahadiina ee amba aw bara ka sarreysa amba xariirad ka sarreysa togwa jaale ka sarreysa ilaa jijiga ilaa dhulka dal isku xidhan buu ahaa taas baa inoo geysay in laga shaqeeyo shanta soomaaliyeed ee isticmaalku u kala haysto inaynu inaka iyo soomaaliya markaynu ugu horeyna inaynu inakuna israacno kuwa kalena inaga daba yimaadaan ha yeeshee amba badownimo a ku dhacdo amba degdeg a ku dhacdo amba farsamo xumo kale a ku dhacda ee wax allaala wax la kala qortay ma jirin caalamkana waad og tahayo sharci baa kala haga sharci ayaa kala haga oo kala saara somalilan iyo soomaaliya ilaa maanta sharci ay dadkaa somalilan ay u footeeyeen oo yidhaahdeen soomaaliyaan raacayna horta ma jiro iyo aftin laga qaado mar baa constitution 61 soomaaliya loo sameeyey ayaa loo footeeyayo markiina iyaga ayuunbaa isku footeeyey inaku 90% ayaa yidhi no sanduuq cad iyo sanduuq madow baa jiray dadkii waxay ku gureen no ma sharcigan ma doonayno markaas baynu khalad samaynay markaa waxay ahayd in la yidha iyaguna khaladka way sameeyeen markaa waxay ahayd in la yidhaahdo daismaydaan raacin oo sharcigan inan sanadu un bay ahayd markaa aynu wada joognay dee labadii dal wix isku haya ma jiro oo waqooyi markaasna maynaan garan markii dameeto iyagii xataa walaaltinimadii iyo tolnimadii ay ku tunteen iyo dadaalkii dadku ay dadaalayeen ay u yeedhayeen soomaali kale amba jabuuti ha ahaato amba NFD ha ahaato amba dhulkaasi xabashigu haysto ha noqotee waa taariikh dheer waxa dhacday inay iyagii ay wixii ay baabiyeen dictatornimo meeshii lala yimid dadkii muruq loo sheegtay reeraha qaarkoodna la dalacsiiyey dadka qaarkoodna tableka hoosteeda iyo cagta hoosteeda la geliyey taasi markaa waxay keentay jabuuti oo aragtay inaynay faa'iida ugu jirin 77 markii gobonnimada ay qaadatay inay ku soo biirto Soomaaliya oo tiri oo Soomaaliland halkii powerkii ka taagantay iyo xukuumaddii halkii ka taagan yihiin waanu arkaynaa maxaanu ka doonaynaa ma waad xijowday iyo xira iyo xabadeeya baanu doonaynaa maya ma galayno waqooyiguna markaa oo walibaana dagaalkiina lagu hungoobay ayaa markaa la yidhi wardabar haddii jabuutina ay diiday
nimankii liberation frontkiina ay yidhaahdeen nooga noqda dhulka iyaga ogaadeenaya annaka xoraysanayne ya maxaa meesha inoo yaala ya ma guri nin kale uun baynu dhisaynaa sharcina ma jiro lagu kala dambaynaya xoog iyo reer baa meesha yimid arrintaasi markaa kabacdi waxay dhalisay in la yidhaahdo war wax soomaali weyn la yidhaha ma jirto haddaba mid baan kuu sheegaya waxaan reer somaliland way u dagaalameen xog bay waxoodii ku soo dhacsadeen way la soo noqdeen markii ay la soo noqdeenna dee waxa loo baahan yahay in wixii la sharciyeeyo oo sida caalamku u yaqaano dee loo sharciyeeyo oo waa maxay dee waxaad u baahan tahay in lagu ictiraafo oo lagu ictiraafo dhulkan aad xoraysatay inaad dowlad tahay oo aad ka taliso ood u madax bannaan tahay si heshiisyada caalamiga ah lagula galo si caalamku waxay kuula qabsadaan marka ninkii aad dalkii aad ka xoraysatay oo weliba isagu maanta aan joogin ay joogaan qaar adiguba aad xoraysay oo weliba ilaa 5 goor rag aan laba filayn inay meesha madax ka noqon karaan ay soo galeen meeshii sababta loo diidayo in lala hadlo oo la yidhaahdo war wax iyagii waanu la noqonay 20kaas iyo 3daas sannadoodna iskuma inaan jirin markii horena 20 sannadood in baynu isku jirnay 10 sannadood waa tii aynu ahayn waataynu dagaalamayni oo 10kii sannadood ee 80gii ilaa 91kii da Somaliland iyo Soomaaliya iskuma jirin markaa gudhideedu ciidamada dalka haystay lala dagaalamayo marka anigu nin kale Somaliland baan jeclahay haddana arrinteeda yaan wada hadal laga gelin oo aan lagu qancinin qoladan xamar joogta ee sheeganaysa Soomaaliya oo dhan inay iyagu taladeeda hayaan yaan la odhanin war qira inaan wax iyagii idagala noqonay ninka taasi leh waxaan u malaynayaa waa nin Somaliland ka soo horjeeda oo aan doonayn Somaliland inay ka godo aan doonayn Soomaaliya sharciyan ragaasi ma doonayaan inay Soomaaliya ka godo nin kale yaan Soomaaliya lagala hadlin arrimaheena wuxuu yidhi arrinta wuxuun bay maraysaa buu yidhi burcabadeed iyo terrorismka iyo wax la iyo hawada eg horta shirka saba sida lagu bilaabo waxa lagu weydiinaya adaa xog badan haya shirka saba sida lagu bilaabo anigu waxaan qabaa in sangaabta laga soo qabto Soomaali garan oo waxa kale oo dhan la iska daayo waan qabaa laakiin annaku uma socono burcadbadeed iyo waxaasuune waxaan u soconaa inaan wax yeegay ku qancino Soomaaliya war laba dal baynu kala nahay qira midna aan ku sheego qaar baa u haysta Xasan Sheekh inuu madaxweyne noqonayo haddii uu yiraahdo Somaliland ana ay hoostamada no sidaa ku noqon maayo madaxweyne isaga ay u xuntaa runta hadda doonaysid Xasan Sheekh bay u xuntaa waayo waxay ugu xuntahay haddii aad leedahay dhul baan ka taliya madaxweynaha ilaa Sayl ilaa Rasgabon jooga baan ahay ee ka taliya marka aad garoonka Hargeysa iyo Berbere iyo Burco ka degtay iyo Boorama lagu xirayo bal waa kaase ka soo dego amba isaga amba wasiir hadduu ka soo dego wala xiraya wala xiraya sanadkiisa wala xiraya marka isaguna waxa uu wanaagsan inuu yiraahdo isaga uu wanaagsan tahay inuu yiraahdo war waynu kala baxnay si aan loo oran waxba ma xukuntid دكتور aad baad mahadsan tahay aad ayaad ugu dheeratay sida muuqato malaha ma laakiin sharaxa loo baahan waa sax weeyaan hadii aynu ku soo noqono soo koobi karana ma waar waayo hadii kale anaka ana leeyahay khaymiin baati mana nihin anaka tubta saxda ah ku tahay waa sax weeyaan marka hadalkaaga wad dhameysay waxa weeyaan anagu wada hadalka ayaan wadaynaa waana sidii hore mabdaciigana mabdaciisi weeyaan waxaan doonayaa ku soo noqdooyin waxaad ka mid ahayd sidan markii aan hordhaca sheegayaba SNMT asaasayaashii baad ka mid ahayd
SNM ka horna waxaad ahayd intaan la aasaasin sida dadka baan u sheegay community-ga halkan ka jiray ee ku mudaharaadi jiray dowladdii hore Siyaad Barre in badanna dee waad ku jirtay oo weliba golihii dhaxana waad ka mid ahayd markii dambena wadigii dalka yimi marka waxa in badan aynu maqalnaa agoomihii SNM oo kolba mudaharaadaya dumarkii SNM oo mudaharaadaya adiguna waxaa tahay la taliyihii madaxweynaha waxa way Axmed Maxamed Siilaanyo arrimaha sideebaad mudaharaadka faraha badan leh iyo dumarkan qaylinaya eele SNM-tiina waanu hayn waxna noloma qabto maxaa sabab u aragtaa horta dadka faraha badan markii daahir yaaliye bay mudaharaad jireen anigu imanka wax agooma ah oo sida u mudaharaadaya maan arag waan gartay Soomaad garan marna bana la waayi maayo ruux yiraahda horta deeg agoomi dee raggaasi ka tegeen iyo caruurta ka tegeen imanka agooma maaha guryihii leeyihiin qaar waxaa u malaynaya inay ma garanaysa awoowaaba noqon karaan laakiin problem caynkaas of course dalkani waa dal dagaalamay waa dalkeed ogeyd Hargeysa siday u eekayd iyo Burca iyo siday u eekaayeen magaalooyinka waaweyn siday u eekaayeen waad ogeyd markii dagaalka laga soo noqday waxaas oo dada iyo wixii ay ka tageen adeer maalin kaliya wax looma qaban karo midna ogsoono dalkeenu weli dal la ictiraafay oo dhaqaale fara badan soo galo amba resources fara badan oo batrool u soo saaraana ma jirto macdan laga qodaana ma jirto waxaanay horta markii lagu leeyahay dad baahan war tan aynu joogno waa kuwaasoo qaar baa gadarrada seexda baahidu way jirtaa laakiin maalin kastaba waxaan u malaynayaa wax dowladda Soomaaliland ay iminka Siilaanyo u ka taliya waxay dadka ay u kordhisay mooyaan waxay ka dhicisay ma jirto anigu waxaa jira urur la baxay madasha wada tashiga iyo toosinta oo u badan raggii aad istaqaaneen ee SNM-na ku jiray Maxamed Xaashi ka mid ahaa uu ka mid yahay Dhagaweyne groupkaasi aad ayay u dhaleeceeyeen dowladda waxa weeye nimanka kulmiya taladeeda uu hayo oo ay leeyihiin corruption-kii baa batay tii imanka markii dhawato inankeena dhageysanaya uu ka hadlayo lahaa xitaa qabyaaladii baa badatay iyaga madasha wada tashiga iyo toosinta arrimaha ay ka hadlayaan oo dhan ma eegteen oo ma diraasayseen oo mar haddaad tahay la taliyihii maxaa idinkaga aadan talooyinkaa faraha badan leh ay soo tiriyeen ay soo qoreen ay shirka jaraa'id u sameeyeen adeer ninkii la rabay reerka inuu xoolaha u raaco oo reerka dejiyo markuu cid kale canaanto horta waa ceeb waa dhibaato weeye raggan aad ii tirinaysaa waa dadkii dalka markii la xoreynayay madaxda ka ahaa waana kuwii indhahooda oo shana dalku isku daatay Soomaaliya iyaga ka talinayay Xasan Ciise iyo Cabdiraxmaan iyo Dhagaweyne iyo Maxamed Xaashi iyo markii dalka la soo galay iyaga wax wada ahaayoo ka talinayay meesha Soomaaliya markii ka dambeysana darajooyin fara badan oo kala jaajaada Xasan isagu dee 2 sanadood iyo dheeraad ayaaba madaxweyne ku xigeen ahaa marka wax kastaabana marka ugu horeysa ayay xumaadaan nimankii kari waayay markii ummadii walaalaha ahayd ee wada socotay ee samada iyo dhulkaba laga garaacay nimankii kari waayay markii dalka la soo galay inay mideeyaan oo isku geeyaan oo ciidankii SNM-ta ku wada abtirsanayeen Hargeysa inta iskugu keenaan bilada halkaas ugu talaan intaas baa ku filnayd ee qoys u kala fariisiyay inay maanta cid kaleeto ay ku dhaliil ku caayaan aniga horta igama dhaadhacayso Soomaaliya marka taa halkaas baan kaga baxayaa dhaliishu waa tii iyaga ka xumaatay ayuunbaa maanta hadday muuqatay iyo haddii la tirtiray iyo hadday wax ka sii joogaan tii unbaa horta jirta maalintaasi haddii Somaliland gacanta ay ugu dhigi lahaayeen siduu Melas iyo Asafarge ay ugu dhigeen Ethiopia iyo Eritrea
ismanay dilin weliba malas ninka la yidhaha afartan jir buu ahaa waxaad og tahay inuu ilaa tan iyo doolo ayuu qabsaday cid aan ahayn dowladdii migiste ee uu riday mooyaane ciidankiisiina dhexdiisa ma dagaalamin cid ka horta midna ma jirin anigu waxaan qabaa waxaasi nidaam xumadaasi maalin kastaba la sheegaya ilaa 91kii waxaa mas-uul ka ahaa raggii markaasi madaxda dalka ka ahaa kuwaasna raggan aad sheegaysaa way ku wada jireen wax imika sidii 19 iyo 22 iyo 23 iyo 4 iyo 9 iyo 5 iyo 9 iyo 6 iyo 9 iyo 7 iyo 8 iyo 9 iyo 20kii iyo 2005 inay maanta kasii qurux badan tahay mooyaane kamana fool xuma mana wanaagsana ruuxu dembi aanu lahayn in dusha laga saaro anigu waxaan leeyahay intii aanu karaynay awooddayada ahayd ya wax badan ayaanu ka wanaagsanay kuwii naga horreeyey waa kuwa khasnada dowladda iyo baanku ugu buuxa maalintii meesha aanu qabsanayna 5 bilood buu shaqaaluhu mushaharadu ay ka maqnayd waxa khasnadii marnaa wanaajiyey ee khasnadaha buuxa xumeeyey baan anigu garan waayay mise maalinba ka markaa taagan uunbaa 10 indhood lagu arkaa okay aad ayaad u mahadsan tahay doctor haddii aan haddana dib ugu soo noqdo waxaynu ognahay in masalan halkan UK aad baad ugu noolayd ruushka waa tagtay laakiin masalan UK oo kale waxaa jira marka mudaharaad yimaado amba dowladda la dhaliilo in kacdoon la sameeyo oo markaa dumarka iyo cid kastaba wixii kacayaaba markay kacaan in boolisku uu si qaaba uu adeegsado biyaha waxa weeyaan amba lagu rusheeyo amba kuwan indhaha kaga ilmeysiisa laakiin mudaharaad kasta oo yimaada inagoo og inaad idinka laftiinu aad cusub tihiin oo dee dowladda kulmiya imanka ay dhowr sano haysay laakiin dowladihii xitaa ka horreeyeyba dhaliisha way lahaayeenoo mar kasta oo mudaharaad yimaado rasaas baa lagaga hortegayay in dowladda waxa weeyaan imanka talada haysaana dhowr jeer oo mudaharaad dhacay rasaas baa lagaga hortegay maxaa idinka yaala in miyaanay ahayn in rasaasta laga duwo dadka oo qaab kale waxa weeyaan dadka waxa weeyaan looga hortago marka ay kacdoon sameeyaan oo kale horta way jirtaa inaanu anakuba xabad ridno laakiin midaan kuu sheego isku mid maaha tanu anaku ridnay tii hore ay rideen shaqol iskumay lahayn laba goor baan anigu xasuustaan goobjoog ahaa labadaa goor mar waxay ahayd markii xisbiga kulmiye hortiisa uu axmed ka khudbadeeyey madaxweynuhu ee dameetana la joojiyey shirkii markuu dhammaaday iyo khudbadiha ay dhammaadeen uu yidhi waxaynu socon doonaa ilaa tan iyo gurigayga oo gurigiisa oo ka sokeeyey ugu yaraan 3 kilomitir ka sokeeyey madaxtooyada ayuu yidhi halkaa maad aynu ku tagno ilaa gurigayga intii aynu mudaharaad samayn lahayn dabeetana mar alaala markaanu malaa 200 oo tallaabo wax ka yar aanu soconnay uu isagii noogu horeeyo anigu waan daba socday ayaana lagu furay halkan uu ku soconaana may qarsoonayn madaxweyne wuxuu yidhi ilaa tan iyo gurigayga ayaynu socod ku gaadhaynaa rasaas baana lagu furay oo daana lagaga qaaday madaxweynuhu maaha inan yaroo 20 jira nin weyn oo da'daasa oo rasaas sanka loo saaray waad garanaysaa dhibaatada ay leedahay oo ahaa halgamaagii 7 sannadood SNM madaxda u ahaa dadka amarka bixiyeyna waxba anigu hebel odhan maayee waad garanaysaa waxaan ku leeyahay axmed maxamed maalintaasi maskaxdayada waxa ku soo dhacaysay markii rasaastaana laga joojiyey maaj kala bilaaba oo ay gurigiisa ugu hortagtaan isagaa noo diiday soomaad garan dad badanna way ku dhiman kari lahaayeen maalintaa ta kale
een anigu goobjooga ka ahaa waxay ahayd markii baarlamaanka markii ay mafaatiixdiisaba qaateen la yidhi baarlamaankii waa la furaya dadweynihii oo taageeraya baarlamaanka in la furo halkaa baarlamaanka hortiisa ay iskugu yimaadeen oo weliba ka fogeyd baarlamaanka oo la doonayay in la arko xildhibaanadii oo baarlamaankii gelayo oo de ma garanaysaayey furanaya ayuunbay dadku interest ku ahayeen wax alaalo wax kaloo interest ku ahaayeen ambaba ay rabeen ma jirin rasaas ayaa oodana lagaga qaaday inan hortayda taagnaayoo 5 tallaabo ii jiray wadnaha lagaga dhuftay mid kale madaxaa lagaga dhuftay soo garanaysid daahiriyaalana kumaanaan mudaharaadeen baarlamaankeenaas iyo dimuqraadiyadda la baabiinayo ayuunbaa lagu dhiiri gelinayay dadka matchna socodna ma jirin waxna ma jirin dad uun taagan oo lahaa baarlamaanka alla furo ayaanu ahay annaku marka ay ugu xumayd ee ay wax dhaceen waxa ahayd waagii dhaweyd ee doorashooyinka ayay ahayd doorashooyinkii ugu dambeeyey habeenkii la sheegay natiijadii ayaa waxaan hore loo arag ay dhaceen 7 habeenimo oo cadceedu dhacday ayaa ilaa 1,000 caruura oo wada dhowr iyo 10 jira oo yaacaya mar kaliya magaaladii dooneen inay dabtoo yidhaahdaan ay ololiyaan magaalada waana dhab arrintaa inamadaasi waxay doonayeen inay khasaaro weyn geystaan khasaaro weyn ay geystaan qaar way igu yidhaahdeen wallaahi waxaanu doonayna bay yidhahdeen inaanu xagga kale u rogno oonu batrool stationada gubna ayaanu doonayna soomaad gar waa caruur yar yar oo la yidhi waa layna dhacay wey waa layna dhacay cid dhacdayna runtii markaad doonayso doorashadii ugu dambeysay ee dhacday waxay tii kaliya ahayd ee dowladdu aynay gacan dheeraada aynay la gelin ii dhegayso haaya ta doonayso uun maahe waa waxa jira waxa dhacday markaa inankii buulayska xukumayay iyo ciidamadii buulayska xukumayay biriijkii baa la maraya 1,000 inan baa soo galay wax kastaba way sitaan waxay ku noqotay war biriijka isku hortaagan biriijkii markay isku hortaageenna buulayskii wajigay dhagxaan kala dhaceen haddama garata waxaana sheegaysa ee biyahan iyo sunta qiiqayda waa marka loo diyaar garoobo eed og tahay in mudaharaad uu berita dhacayo nimankani mudaharaad fasax uma qaataan mabay soo sheeginba mana la soo sheego marka yaa mas'uuliyadda qaadi lahaa magaalada Hargeysa haddii bacadlayaashooda iyo dukaamadooda xagga kale loo rogo ya habeenka way jirta waanaanu ka xunahay caruurta dhimatay qaar baa familygayga ahaa laakiin madaxweynuhu isaguba adeer habaduu ku war helay amarna ma bixin kamana warhayn mana filanayn waxaasna waxa keenay doorashooyinka qabyaaladda lagu gelay ayaa keenay qabyaaladda doorashooyinka lagu gelay ee la leeyahay haddaynu reer hebelnahay waa laynaga eexday iyo siyaasiyiinta sheeganaya inay axsaab madax ka yihiin ayaa horta keenaya qabyaaladana maanta axsaabta ayaa wada meetaniga nagu muhiimsan hadhow sidee nagu hortegi karnaa haddii waxaasoo kala dhacaan in meel meedin ka yaalaan in aan waxa weeyaan rasaasi aanay iman taanaku haddii ruuxu uu mudaaharaadka marka hore horta eeg cid alaale cid diidaysa mudaaharaad cid diidaysa ma jirto laakiin meeshan mid baa jirta dadkani mudaaharaadba maba weydiistaanba fasax haddii meelun baa la isku urursanaya waa la soo yaacayaa una buulayska marka la arkana dhagax baa lagu tuuraya Soomaaliga waxaana la doonayaa in qoriga laga qaado in fact waaga dhaweeto inan kasto askari wuxuu yiri waxay doonayeen qoriga inay ka qaadaan saas baan war eeg rasaastu waxay dhacaysay malaa saacad bay dhacaysay anigu meel bridge agtiisa abaan joogay inta
inamadaas iyo carruurtaasi iyo dhallinyaradaasi waxay doonayaan nimankan askarta inay qoriga ka qaadaan anigu anigii ciidanka ahaan jiray ninka askariga ah haddii qori laga qaado oo uu xijisan waayo qorigiisa de waa wax dhintay wey waayo dawladna kaasi ma ilaalin karo statena nin wax ka tari kara ilaalintiisa iyo waajibaadka statekiisu ku leeyahayna da ma aha markaa askari looma dhowaado qorisita hadduu 3 goor ku idhaa joogsan weydo waa inuu xabad kugu dhuftaa habeenkii markay tahay haddii aan usoo noqdo horumarinta somaliland wax badan bay imika dowladdii kulmiya ay ku dhaqaaqday waxyaalaha ugu waaweyn ee imika aad loo hadalhayo waxaa ka mid ah darajooyinka ciidamada oo la kordhiyey oo weliba lagu taxay ciidamadii saraakiishii faraha badnayd iyo madaarada la dhisayo waxaa kaloo ka mid ah macalimiintii amba iskuuladii wax la dhigi jiray waxa weeyaan laga dhigi jiray oo dhan oo bilaash laga dhigay laakiin mar kasta waxa soo noqnoqotaa wadada u dhaxaysa masalan Hargeysa iyo Berbera inay dad ku leedaan oo wada xumaani ay jirto halka miya xal ma adeerto wadadan wadooyinka qaarkood horta in sidooda loo dhaligadiyo oo si wanaagsan loo sameeyo mooyaane ka kabistan la ka kabaya wax badan ma tarayso waayo baabuur waaweyn oo miisaan weyn leh ayaa wadada mara ta kale wadada markii la dhisayay hore ayaa lacagtii loogu talagalay masuqmaasuqay ee dowladii hore marka wada iska xajin karta waqti fara badan gaadiidka dul maraya maaha runtiina 100 goor iyo in ka badan meelo fara badan waa la dayactiray laakiin maanta dowladdeenu dowlad Berbera iyo Hargeysa wadada u dhaxaysa intay dhammaanteed bedesho wada cusub dhisi karta maaha waayo wadooyinka lacagta ku baxda waad garanaysaa waxaan se ku leeyahay dayactiridu ma yara waa maqaadiiruna dayactiridu aad baa loo dadaalaya waxaa kaloo waxyaalaha iyada lafteeda ilaa hadda dhibi ay ka taagan tahay sidaad sheegtay kulley dhaqaale xumaa jirta laakiin haddana waxyaalaha ugu waaweyn masalan dowladihii hore iyo tanba lagu dhaliilaya waxaa ka mid ah dhalinyaradan faraha badan leh marka jaamacadaha dhameeyaan ee iskuullada dhameeyaan soo yaacaya waxa weeyaan ay marinayso baddu iyo kalluunku uu ku dhamaystay Liibiya iyo Yemen iyo meelaha halkaana maxaa xal arinta ma u samaysan inkastoo wax alaalo waxaad ka qaban karaysaa inankan yar waxa ka dhacdhacsan oo aanad maskaxdiisaba ka saari karayn mar hadduu iskuulka secondaryaba gaadho dhoof ayaa ka dhaadhacsan waxaa ka dhaadhacsan Yurub haddii la tago Jannatul Firdawso oo kale ayaa la tiimbanaya qaar baa halkan uga soo dira iyagoo internet haysto oo sariir ballaaran ku jiifo oo markaas oranaya de waan galay halkan uu galay markaan Hargeysa tago ay ugu yiraahdaan hebel wuu kala waxaan da war agale meel khayr la muu gelin jeel bay hurdaan xiriiqa xunti bay ku jiraan guri cid allaala cid maanta adiga ban ku dhiibay Cabdiraxmaano miyaa maanta Ingiriiska home office miyuu dad qaabila sidoo waagii hore noo qaabil jiray miyuu qaabila soo lama xirin dhulkii dadka lagu qaabil jiray haddana ka dhaadhicin kari maysid war meeshan waxba idagama soo horeeyaan iskuuladiina secondary-ga ana si fiican uga soo baxa oo u dhigta goorna dalkeenu qarkaa loola saaray ictiraafe marka aynu ictiraafka helnana sidaanu annakuba koorisyada dibadda ugu tegi jirnay ayaydu ugu iman doontaane aayaroo dhalatay iimaansada halkaa aad joogtaan oo ka dhursuga inta caalamku ina aqoonsanayo oo aynu dadajino idinkaa dhallinyaradii ahayd sidii aynu dalkeenna iyo dadkeenna u walaalayn lahayn ay u wada jiri lahaayeen weliba maanta aan mid ku sheego runta markan ku sheego
aan kuu sheego dhalinyaradii lixdankii kuwa maanta jooga ka niyad wanaagsan kuwa yagii waktigiina iyo kuwa maanta joogana kuwii waktiga yagii ee 70-yadii amba 80-yadii dhalinyarada ahayd ayaa ka wanaagsan waayo annaka wadaninima nagu jirtay qabyaalad caynkaas oo aanu naqaanin ma jirin war kuwani mooye malawa dad qaad cuni jiray baa dhalay oo waa intoxicated oo qabyaaladaba iyaga horseeday wax allaale wixii food dhacayay midaan reerkooda dabada aan ku hayno wallahi inaanu jirin iyaga horkacayay Soomaaliya annaka waqtiga iyagii iyo waqtigii cigaal iyo gobonimada iyo la helayay qabyaalada meel baa la iska dhigay waxaan garanayaa xaafadda Dumbulu oo anigoo yar mooy 60-kii waxay ahayd ayaa nin dhinacaas laxlay hawdkaas laxlay ka soo galay ayaa halka ay soo taagay laba dukaan oo kaliya Dumbulu ku jiray horteeda wuxuu yiri adeerayaal waxaan doonayaa nin hebel la yiraahdo oo maxay oo ciida gala oo sidaas ah walaayay bal wuxuu ku hadlayaa qabyaalad buu weydeen waroodo naga tag wallaahi wa billaahi ninkii wuxuu watay subag iyo saacad iyo badh isagoo wareegeysanayo oo nin kastaaba ka cararayo leeyahay kana le reer hebel muxuu ahaa garanaya xaymka ugu wacan marka inay imika waxa ugu wacan kuwii 60-kiiba adeer cidi tababar ma isiirin niyadooda wanaagsaneed waliba waqtigaas bay Soomaalidu qabyaalad ahayd rag uun baa u kacay oo yiri war qabyaalada aynu ka baxno meel ina gaarsiin maysay dabeetana axsaab baa la sameeyay axsaabtii markii la sameeyay axsaabtii boolisgooda ugu weyn waxay ahayd inaan xisbiga qabyaalada lala soo gelin inay dadkuna isku mid yihiin in halka lagu soo aaso qabyaalada ma jirto maanta waxa lagu leeyahay axsaab baa jirta taasi ma jirto waxa abu ku oranayaa beeshayada ayaa i wadata cid ku caayaysaana ma jirto anigu haddii la iga aqbalay waayo Cumar Dheere ba Hargeysa laga doono in kasto aan qabo inaan cid ka xigin Cumar Dheere Hargeysa oo ku dhashay oo halkan ninka la yiraahdo Edwin Miliband oo yahay nin Yahuudi oo Czechoslovakia miyuu ka yimid aabihii iyo Michael Howard iyo haddana ay halkan doonayaan inay prime minister ka noqdaan watii looga footeynaya Hargeysa marka waxaan jirin dhalinyaradii niyadda wanaagsaneyd ee isku tagi lahayd ee jaamacadaheena wax allaala wax ma garanaysaayay fikir cusub oo siyaasadeed oo ka socda oo qabyaaladaasi waxa lagaga hortagaya ma jirta maalinta ay doorashadu timaado xaafadaha ay kala wada raacaan inamada lagu leeyahay waa graduate anaga waqtigayagii ma jirin kuwii naga horeeyay waqtigoodii ma jirin marka waxaan ku leeyahay arligu axsaabta ayaa dhibaatada oo dhan wadata axsaabta lagu leeyahay waa mucaarad waxa la mucaarad ma yaga shiraba ma bashiraan executive-koodu ma shirto central committee-gooda lama shiro intaanu gelin xisaabta waxaan doonayaa inaan ka weydiiyo halkaas bayna qabyaaladu ka imanaysaa xisbi kule dadkii way hoosaasinayaan marna waxay leeyihiin xisbi baanu nahay haddana qabyaalad buu dabada ku haya masalan adigu waxa tahay la taliyaha madaxweynaha ee waliba gaarka ah in kullu wad ka waraysa calaaqaadka Soomaaliland iyo dawladahan kale jaarka iyo kuwa kaleba halku maraya heerkeebu maraya calaaqaadkaasi adoo markii horna ahaa in Soomaaliland calaaqaadku deewrta calaaqaad wanaagsan baa jira wax loo oran karaa arligu markuu ku ictiraafo nabadgelyo wanaagsan baa inaka iyo dawladaha jaarkeena inaga dhaxaysa sidii hore ma ka soo dhow yihiin sida hore anigu mar xumaaba horta waa midna waa Djibouti midna waa dalka Ethiopia cid kale oo aynu la leenahay xuduud aan Soomaaliyada aynu ka baxnay aan ahayn ma jirto sida hore waagi horena fiisa inuu isku kala qaadanayna waana la wada baacan mustareynayo wax badan baa dekada Berbera dawladda Ethiopia u soo marayay iminkana waa sidii si ka wanaagsan wax dhibaato oo halka ka jira oo aan wanaag ahayn dhibaato weyn inaanay jirin laakiin in aqoonsiga laftiisa aad ka hadlayso
maxaa hortaagan in waxa weeyaan adeer waliba marka horena waxaynu ma eeg aan arrintaa dib ugu noqdo ictiraafku wuxuu inoogu dhowaa 19 22 23 markii aynu dalka Soomaaliya oo dawladdii dhexe ay burburtay markaas bay ahayd ninkii Caydiid ee waliba inaku aynu hubaynay aynu baligubadle 800 ee qori ee ugu horeeyay aynu ka siinay inaynu waxayna ka dhamaysano Soomaaliya waayo inaka iyo Caydiid baa wada ridnay halkaynu ilduufnayna waxay ahayd asabarke iyo malas intay isku yimaadeen ayay ku heshiiyeen haddii migisa dalka aynu ka saarno hadda sababa ayaynu ku kala seexanaynaa Eritrea inay ka godo soo meesha la yidhaahdo Ethiopia inteeda kale asabargow adiguna intaas baad qaadanaysaa aniguna inta kale Ethiopia weynta ayaanu haraya inaku halkii laynaga rabay inaynu Caydiid iyo Cali Mahdi u yeedhno inayna authority kaliya soo hadhay markaa labadaas bay ahaayeen aynu dhaahno war dalkayagii waxa ku dhacay waydo arkaysa idigumana soo deyn karna SNM oo haddaanu soo deyno dadkaasi regionadaasi degan ee ahaa dadkii xasuuqayay gobolada waqooyi ayay ka aargoosan doonaane halkayagan ayaanu doonaynaa inaanu calalada iyada ku toltolano guryaha iyaga shiraaqiya ku saaranno ilbaabada iyada ku xidhxidhanno walaalayaal aynu isfasaxno halkii laga odhan lahaa ayuunbaa waxaa lala soo baxay erey ah gooni isku taagu waa muqadas waa muqadas waa muqadas exactly waa sidii 60kii la odhan jiray israac bilaa shuruuda ninka yidhaahda waar dee waa muqadas oo waa dhab laakiin dee muqadasnimadii wada hadal baa ka horeeye waa inaynu nimankii aynu ku qasabnaa inaynu is-aqoonsano oo aynu xuduudi inoo dhaxayso dee waa inaynu nimanka isa soo hor fadhiisana 100 goor baana lagu yidhi waana lagu yidhi waa la iska dhega tiraya waa la isdiidsiinaya Soomaaliya iminkana anigu waxaan qabaa reerka aan markay dad wax kala galaan aan lahayn odayaal garbaxa amba waxooda u doona reerkooda de waa reer baaba'ay waxaaba la yidhaa war reerkaas cid lala hadlaba ma laha haddama garantay marka waxaan kuu sheegayaa innaka ayay gobonimadii inaga maqanta kana waxba ma haysto waa taasoo meel kastaba ciidamo afrikaana baa dalkiisii haysta oo been baa loo hadoodlayo koofiyad weyn ayaa loo geliyoo la yidhi ma garanaysaa ee waxaa tahay madaxweyne laakiin wuxuu ilowsan yahay tii ahayd adigaa masar joogi boqolkii fircoone uu ninkii hadibka ahaa uu yidhi dharka ugu qurux badan oo nin fariida mooyaane nacasa aanu arki karin ayaan kuu samaynaya ee dabeetana inankii yara markuu arkay boqorkii oo dallaayad la dul haya hase qaawan uu yidhi haadaa malakul curyaan tii oo kale weeyaan horta xasan sheekh markaa anigu waxaan qabaa koonfurna waxa u wanaagsan intay xukumaan ay kari karayaan inay ogaadaan puntlandtan iyo jubbaland iyo hiiraanlantan iyo magacan awal lama odhan jirin laani regionay ahaayeen wixii ay ahaayeen iyo somaliland ayna ku hinaasineed waa inaynay annakana odhan 18 dowladood baanu nahay dowlad aadan cadda uu hogaaminay oo mid keliya ayaanu anaku ogeyn 18 region oo federal ma garanayno mana raali kanihin Somaliland waxayna raali ku ahayn laguma qasbi karo dalkayagiina waanu haysana haddii weliba ay diidaan intanu xadka soo taabano ayaanu dhulna kaga darsan anaa kuu sheegay waxaa doctor hadda timeka baa naga dhamaaday doctor daawadayaal timekii ayaa dhamaaday oo gabagaba ahaa waxaa maanta noo marti ahaa doctor Cumar Cilmi Dixood oo ah la taliyaha gaarka ah madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee Somaliland in wax badan ayaanu maanta ka wada hadalnay oo su'aalo badan baa la weydiiyey oo waxa weeyaan uu ka jawaabay aad ayuu u mahadsan yahay
imaatinka iyo martida uu naga aqbalo uu noogu yimi Star TV xaruntiisa waxa weeyaan maxay London idinkana daawadayaal waxaanu idinkaga tegaynaa sida wanaagsan aad noo dhageysateen khayr iyo barako iyo assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.